furaleysta la yidhi xoolo iyo caruur iyo wax walba way helaysaan hadda waa astaghfirullah halay sheegayna niyar oo Soomaaliyeed oo muslima oo Mareykan joogo shaqaysta oo yidhi maalintii 2,000 astaghfirullah baa sameeyayo wax haba yaraatee nolosheedii soo hortaagaba jira hooyaday baan maalintii dambe oo dukaan haysato waxaan ku yidhi hooyo haddaad laftaada astaghfirullah badiso dukaanka uu camirmaya islaantiina way samaysay dukaankeedu ma camirmay kuwa kale la dhaafaa waxaan uga jeedaa marka waxa layna baraya asbaab kale aan ahayn asbaabtan maadiga aynu naqaano shilin ku darka aan ahayn oo nolosha wax ka bedeshaa inay jirto oo ah rabbus samaawaati inuu labadaba isaga qaanuunkan dhigay qaanuunkan fiisigiska iyo dhaqaalaha nolosha lagu wato isaga dhigay maca dalika isaga ana ka talaabsan kara ولذلك با كراماتك iyo mucjisaadka iyo waxa soo dhameey waa maxay waqaanunka in naqaano laga talaabsanaya karaamadu waa wixii inuu naqaanayo laga talaabsaday ولذلك suuradani waxayna baraysaa marka fitanka dhamaanteed haday fitna diineed tahay iyo haday mid maaltay iyo haday mid cilmi tahay iyo haday mid sulta tahayba in laga talaabsan karo hadaad suuradani manhajkeeda fahamtid oo ah qofka suuradan akhriya adaa lahu nuurun balayri نور بالله إفيا وبين الجمعة والجمعة وكيف سكر بالله إفيا هلأنا سورة أنا وحي بريسا قفك مسلم كا نلش وحي لهذا وح لقبقه وحي لهذا مشكلات كأهرية هذا وحي لهذا هي مجدية وقلق بين هذا وحي سورة أنا كبريسا سكينة ده حسلوني ده يطمئنين ده يهدات سورة تنخرده إن قلبك وحصله وأنا وحاسك أرجح جلنين لا حق قلبك أرجح جلنيا ولا دقاليك أبدا ينبك أرجح جلنيا ولا دون دانو ما ملابك أرجح جلني سواء واحد ربيسات رب السماوات والأرض إن كحرنتها وكتحنتي ولذلك أيها الأحبة هذين السنة سورة كورة مرنتي بدن بين شيء كرنا ما إن قصص كمدنا ما إن تفصيل تفاسير تقول لك أنا الله يدين تفصيلني